سلام كدب إلهي بقى مهدله أنت هذا كان واحد كدستي وهذا أنا حلك كتكتي إنه قاعد يسوي علينا هذا أنا أتصور نقط مركز دمب ما شاء هذا عاد بالله فرح سياهي أنت كسور ويسي أنت لك تشوكتي تشوف الآن المالي تشوكتها waxaan ku leenahay mar labaad madax dhaqameedkii dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku leeyihiin mar labaad soo dhawow aad iyo waftigaagaba inta kadib madaxweyne anagu inaan ku aragno waa rabnay laakiin isaraqyada badan sida aad uga soo sheekaysay ay baashu isu bedelayso bay isaraggan ku xiran yahay warunta ninka nasiib u yeeshay baad ahayd dowladda federaalka ku meel gaar bay ahaan jirtay laakiin madaxweynaha nasiib u yeeshay buu ahaa man inay ku meel gaarka ka baxdo ninka kursiga ku fadhiisto soo adiga ma ahayn ilaahay baa mahad leh wixii aad dhistay waxa la reer ninka dhaqay hadduu ka tago xoolihiisu kama hadhaan bale dadkan waa raggii aad shalay kala tagteen markii dambana idinkoo gacmaha is haysta oo aan ballan qaadnay calaf waa meeshiisa mar labaad inaad soo noqoto ka ballanka kala qaadan qalinka ilaahay baa iska leh laakiin runtii maalintii Jubbaland markii doorashadu socotay waxaan fadhinay rag aad u badan oo 60 meel baan fadhinay marna waxaa leen xasan sheekh yaa xilka ka qaado waa markii hore Jubbaland dhisayn markii dambana 60 ka anaga waxaad mooday in la yidhi waddanka dhan Soomaaliya waa la rogay naxdinta aan naxnay maalintaas xaqada dhabta xafiiska madaxweynaha meeshaasan fadhiyo wixii horta saas isu bedelaya laakiin asalku waxa weeye waa Soomaalinimada madaxweyne arrintii dhaxalkii laga tagay waa runta ilaa Cabdiqaasin ragii is bedelay oo dhan ninku markuu tago markuu joogana in la amaano markuu tagana la waxa muusa qabanin waxba kama jiraan laakiin waa dhaqanka Soomaalidu leedahay nin kasto halkaas soo maray oo wax qaban ma jirin ma ila jirin waa la waday jaraanjaradu way socotay oo ma hadnaqayna ragii xilkaas soo wada qabto dhan wixii dhintay Allah u naxariisto wixii noolaa ummadda Soomaaliyeed waliba meel buu gaarsiiyay ilaa markii dambe dowladda ay ku meel gaar ka baxday oo aad noqotaado madaxweyne meesha ku fadhiyay maxay dhashay dowladda maxay dhashay federaal barish waxaan malayn federaalka maanta dhisan bilaash kuma iman nafiya maal baa ku baxay dhiig baa ku baxay waxa ogeed baa la soo maray xagee joogan maanta wixii asalay ka tagtay xagee joogan anaga hadalka anaga maanta wuxuu badanayaa meelahaas uu badanayaa aw galmudug waxa ogeed baa dib ka raacay dowladda iyo inaga dhan bay naga wada raacay xagee maraysaa wala ruuxaya waxaan rabnaa horta madaxweyne maadaama madaxweynihii u dambeeyay federaalka aad tahay anagu waan yaabana Soomaaliya meesha u socotay nolol sheegan rabnaa xageen u soconnaa shalay waxaan u soconnay inaan Soomaali qabiilkii ka tagno inaan federaal noqono inaan mid noqono saasan ku kala tagna markii isugu keen dambeysay eega xageen u soconnaa wahanka iyo walbahaarka nahaye xageen u soconnaa ayaheen muxuu dalkeena away hantideena away xuduudaheena away
dalkeena awo annaga hadda reewaamana meeshan joogna waama wad kasi waa iska dambaynaa dib baan jirnaa laakiin ka yaab badan baa jira maadaama maanta aan nasiib u yeelay inaan kula kulano annaga dalkii meesha u socdo waa ka rabnaa waa koow waxaan rabnaa dalkii dadkan wax ka dhisaan ka dhanay dad duqay waaweyn baa joogto dalkan wax ka dhistaan waa runta federaalka inagu ma aqoonin wada ogtay laakiin waxa naga dhaadhiciseen in nabad lagu helay aan noo sheegteen annagu halkan ku haynaa naga tagtay meeshii la geeyay waa ka rabnaa federaalka meeshu hadda aaday baa la rabaa koow maxaa la isku ogaa wixii la dhisay kor ha loo wado yaan dib loo noqonin ma hor baan u soconaa mise dib baan u soconaa weyn xageen joognaa waaya xilki baad ka tagtay mas'uuliyadii Soomaalinimadii iyo xilki waad haysaa wali wali Soomaaliyana wuu hayaa anagu waxaan rabaa marka inaan laba point taabto ay dhaaftay geeska qabaaleey dalku waa Soomaaliya dadkiisina waa nooli wuu joogaa waxaan leeyahay adigoo u horeeya Soomaali waxaan u diraynaa baaq dalkeenni xageen maraynaa Soomaalinimadii maxay bay ku dhacday nin wax ku sheegayna arki maysid bahal biladaya la yiraahdo oo wuxuu lagu qorhayo yaa dadku ku mashquulsan yahay haata nin masrax intuu soo istaago dalka halkaas u marhaya ku dhahaya ma jiro dadku kulli wuu wada foorra bahalkaas lagu mashquulsan yahay anagu duqeyda horaanay ma biladaya naqana waxa la rabaa dalkii waxaan u aragnaa inuu wareegay dalkii waxaan u aragnaa maanta leegadaad ka sheekaynaysay dad mustaqbal loo higsan hayo wax doonayaan qaran dhan iyo ummad dhan annaga dalkaanaga dheeldheel kuma bixi karo Soomaali baan nahay inuu hawoon karana ma jiro waxaan u baahannahay waan xishoon jirnaa annaga reewaam hadana laakiin hadda seeftanada galkay ka baxsanta waayo mar haddaan Soomaali doonayno Soomaalina ka koobnaado afka ku qartay anagu dalka Soomaaliyeed ma rabnaa dadka Soomaaliyeedna waa rabnaa caasimada hadda ka timid wadanka inqilaab revolution ka badhicin buntuq lagu ma qabsan wadanka odayaal dad aan soo aroorinay laakiin la aruuriyay way sognahay madaxweyne waan aroonay laakiin waan la aroorinay laakiin ayada odayga iska lahaa dadkii aan keenay waxaan u dulqaadayna waxay in Soomaaliba lagu raadiyo bidaan bay ahayd calaamad bay ahayd awal dadka buntuq lagu ma qabsan in maanta la yiraahdo wixii jirayna waa la dumin wiilal yar ay ku cayaaraan Soomaali anagu ma yeelino Soomaali ma yeeliso afka anagu wuu dahaadnaa waan xishoon jir laakiin anaga Soomaali baan nahay Jubbaland baan nahay Soomaali baan doonaynaa cid Soomaali isu keentaan doonaynaa wiilal dhan yar oo ku cayaaro ma baahan madaxweyne waligay hadalka kuma hadlaan maanka afcad baan ku leeyahay maxaa jira anu biladayahana ma aqaan laakiin waxba ay muuqdo rag dalka wax ka dhisay baan nahay duqeydaas oo dhan waa rag wada jaban oo dawladda ahaan jiray weeyii xamar way sayxan laadahay dhiigeeda socda yaa layn haya dadka dilahaya waay habeen walba waan naxayna dad aan naqaanay iyo dadkii ehelka oo dhammaan annaga Soomaaliya waxaan u baahanay nin Soomaali doon ah oo dal doon ah oo federaalismka naloo sheegay ee qoorta naloo geliyo nagu hagaan u baahanay madaxweyne anaga wiil inuu rag is amaanayo ma baan rag ay Soomaalidu amaantaan u baahanay naatiin baan qabaa waan is amaanaya waxbaan qabtay kana waxay anaga nin yiraahdo ma baahan hadoo waan ilaayda ka ma rabna anaga waxaan rabnaa nabadoon waayeel nin Soomaali rabaan u baahanay sanka nin naga geli karana ma jiro waa hadlayna wixii ta ka dambeeyay waxaan rabnaa
حمر واشركة النجا قل مذوق وضلك النبي صوماليا وصوماليا كوا أسو حنقل تاجا هينا ماشي وصوماليا ها قاعدين خيرك إسكالنا وصوماليا عربنا نأقون حاجة يكجشان نأقون لعجال لقى سوقاتنا نأقون نكتين بقواعد ذلك عربنا كله نأقون وعربنا مسجد دير عن قدرنا هدانا هي أمد الصومالية دقن كهدانا وحليس لوجي هي ما ربنا إنهم كلا ترون ذلك جعنتو كبحي وركبنا كبحناي ما وحان دورنا أو جندونسنا أنتو جعنت كبحي بس طبعا تشتنينا نوحي نود كيس قال منا لا ما كراليش ذلك حشود ما قالوا إن هذا يرونا ما قالوا اسكو خير بعنا هنا ما قالوا ورئي عدجونا ما قالوا صومالي وصومالي ذلك هو صومالي يا اسكالي هل مليون ويل باكو دمت هو كنا فواي تاريخ بدل كلية ذلك عليه حدودها لقى صوت قالي حد عي دورنا سام أنا قرأ واحد بارنا ماشي إذا كنا قاعد بدنا حاجة كي ما أنا يو إنكرم حد ليدين وحان مركز ربع هذا كي جنا كسوة كمان قابي كسوة قابي ما دام أنا وذا جوجنا حلا بعنا دي جوجان ويل أمانو وكبر يعرف ولا وما بهنيني وحانو بهنا هي ويل الصومالية دانو بهنا نمان قرناس تقوى تهالك عشان تجيس كده الصومالية رجع سانو بهنا ديلك ووب حسبي صوماليا أنا هذا وحيو بهنتي قرك اللقب حاول قوي الوصمة هنا ما هي قلصت هذا أنت إسكانتي إستي نبت سمايسي حلو بربرنا وقوي وايس أنا كمان صومالي بس كله هذا يمود هيان لواتك سنة إنان هبعني مايا سامها سيدا ماها صومالي لما مقولن كر نما كان العاق هذا بورسده عن لفتي ندبوا لقالين تقحصنا ومقلزة دي مدحوين بدل العاق هتوك خلوات ربطاه لكن توق صوماليات بات حاربنا قال يا الله اللي شرتين يضدك الدرس كاين الله حضنه أنا كعدون ما سوينا شرر بقبنا إن أفريقيا ضدك أن درس كنا كنا ولي أنا ما نتقال كنا وان تقال قرقنا وقرق صومالي هو صومالي ما نبدل من مركب وحنا لنا هاي صومالي ريفولوشن كبر عن تاوى صومالي كله تنلبات حبا كادم بي أنا وقت هنا وقت هره عذاب علد بنسكو يرهين مركب هره لكن لفت اللي بجيبين نسماه ورنما لفت جبين هي بتقونين أعوذ بالله من الشيطان إنه كل أفر فاتعن سومرين كل لبن سومرين ضد صوماليا وحكد حيان هين مدحوين حسن وما أنت وعن كل هاي تدبا تنشرباني أنا قرمت تنشيقية وقت يدي من إلهي بوك لكن أنا صوماليا والصومالي ودحية وإهلي إن تيدا إن قلب الربا نما لفت جبين هي يا يمين أنا أبو نما كان يعوض ما مري كم بعوضه مجهول ديارته يساريه يا ساري يا قضي أنا وحبنا ما نارك هنتنا ما نارك أنت هالكافر ده واتقنا خيرك لا بنو إسكو قيس مجر قيس قد واجب اللانوي أبقى هالتوافد همش وراو واسادو شيء يسوي صومالي نن فدي المره بجون أو أنت أصلا وصومالي ورنتا حدمتي أنا قاعد تكتي لحالك صوماليا هنا لكن أنقوا أنا لقول فنايا وقعنت أنا لقى قراعيا مرة هذا نقصو قاعدين ويلاي مهندس وعائلة الركبة يقدم بين دونا هذا يربان إلى هرلان لكن هذا الكي وحنكو قبيل أنا وكنت بنكو دقنة صومالي ما هي صوماليا هدي لوايو dadkeedii baa tahay duq baa tahay hal la baaqo kacdoon shacab waa inuu dhacaa dadka Soomaaliya halayn haya yaan la kala xishoonin waa hebeliyo waa reer hebeliyo midna ma jirto Soomaaliya maanta waxa weeye waa Soomaaliya iyo dawlad iyo federaal weey iyo midnimo Soomaaliyeed waxa ka bedelayna waa artaan dalka wax laga qabto intaas aan dhihi lahaa soo dhawow Jubbaland waa tana wax ku kordhay mooyeen wax ka dhimay male laakiin dagaalka meesha aad ka jirto inaad ka gasho weey
عويسك والله طما لكن لحسة حدين لقارو انتربال على قطع نما انتربال لا بقادين نبى جوجو صون نادي هبه مثلا دقالك وضع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo abtirkaani nasabkaani reer Jubbaland waxaan kugu soo dhaweeynaa salaanta islaamka tan ugu qaalisan assalaamu calaykum taariikhdii aad ka sheekaysay ee Soomaaliya ee soo martay iyo maanta heerka ee mareysana madaxweyne aad baa kaaga mahadcelinaynaa gaar ahaan iyo guud ahaan maamul goboleedyada Soomaaliya qaabkay u kala horeeyeen iyo qaabkay u dhismeen iyo wixii laga soo maray madaxweyne aad nooga sheekaysay waxay ila tahay oday waxa liir maskaxdiisa dararto mar haddii waxba ku soo dhacayo reer Jubbaland odayaasho dhaqanko dhan awood hurdaya maxaa yeelay waa u nasteexaysay waa noogada nasteexaysay Soomaaliya geediga ee ku jirtay meesha u joogta sharaxaad dheer ka bixisay kaaga mahadcelinaynaa warka afayeenka Jubbaland ugaasiiri walaalkii ka hadlay waxaan u istaagay ayidaad waay inaan odayaasha dhaqanka wada qabno reer Jubbaland wixii maqan iyo wixii joogo annagu waxaan rabnaa Soomaali annagu waxaan rabnaa wada shaqeyn iyo wada socod Soomaali nin u raadinaya rabnaa inuu leadership noo noqdo ma rabno Soomaali nin dhabarka ka jabinayo ma rabno nin arax ka wareemayo ma rabno reebel meesha ifni ka kacay reebel la fadhiista ma rabno oo ku soo daalnay 30 sano loo joogo hore aga sheegtay ma ku laabanayo umrigayna wuxuu jir Ilaah baa og maslaxad ka talas iyo nabad ka talas baan nahay aniga nin kasto Soomaali sida arabkaadu ku jirtay ugaaskana dhameystiray nin kasto Soomaaliya inta ku nool gumaysi kuma joogo hadadaad kuma joogo Soomaaliya ka koobana odayaasha dhaqan halka oo ku wada fadhin sharaxaad ma aan xayisiin ma siyaasad ma aan dhaqanka rasmiga ah oo Jubbaland halka ku fadhinaa waxaana soo dhaweeynaa ninka waxa la yiraahdaa ninka oo waxay yiraahdeen qoladan reer xamarka waxaan ka maqli jirnay ninkii oo cashada qabo oo cashada heesto ay quraacda ugu dartaa ma aan warkaan waa ka bedelayaan kaas waxaan rabnaa nin maanta wax rabo oo Soomaalina rabo inaan sii riixna rabnaa anaga odayaasha dhaqanka oo Jubbaland saas way aragtida iyo fikirkooda nin dulma wado ama dhaqan ha ama siyaasad ahaadana waxaan leenahay iimaanka Allah geliyo meeshii aan ka soo guur inaan ku laabanno ma rabno insha Allah warka wuxuu noogu kooban yahay afayeenka ka hadlay inaan ka hadalno intaas oo warkaan la xabaarsiyahay waxaan isku sheegnay marka hore madaxweynaha noo imaanayo afayeenka waxa qabta isla qabnaa jeediyal hal qodob oo arabkaadu ku dambeeyay madaxweyne adduunka qabiil waa laga tagay jufo waa laga tagay Soomaaliya soo martay arto iyo maanta ugu dambeysay dawladda hadda federaalka tan ka dambeysay qabiil lagu dhisay waxa aad ka dhawaajisay adduunka caalamka dhammaan ka jirta Soomaaliya kala ma hal geedigan wuxuu ku ansaxmaa 22 diin la gaar in xisbiyo soo baxan oo qabiil laga gudbo xisbiga iyo qaabka u dhawaajin kasto madaxdayni anaga hadda insha Allah anaga dhawaajiso xoogaa arabkaada ay ku jirtay waa kugu ayideen waan kugu soo dhaweeynaa dhaqanka dha waa kugu ayideenaa waan kugu soo dhaweeynaa ma shaqshaqaayo insha Allah Ilaahay idinkiis qabiilka saad u sheegtay wala taarifo in la isku duulo la isku soo jam ma ahan kuwa Soomaaliya dagaalka u gacan taagay waxa leenahay iimaanka Allah soo gulsho dagaal wiil ku dhint wiil kuma dhasho waxaan ku sheegaynaa annaga intaan noogu timid Kismaayo oo wax nala toosisay oo qaab walba noola gashay oo maalintii madaxweynaha gacanta garabka ka saarayso Allah maanta madaxweyne ugu horeeysan waa kaaga mahadcelinaa xasuusi waay aad baa kaaga mahadcelinaa oo reportka la joogay waxaan kala rabnaa Ilaahay idinkiis wixii xun Ilaahay naga najiyo wixii xun Ilaahay naga najiyo waxa guuleysanayo ninka xisbi Soomaali wato amaanta Soomaali hormood uu noqon karo waxna uu qaban karo laakiin jifi iyo qabiil iyo deegaanka aan ku badan iyo reebel ma aniga badan iyo eber ragayna ragga Soomaaliyeed meesha ku baabaa la isku sheegmaayo
waxaan kugu soo dhaweeynaa ilaahay dartiis waxaan kugu soo dhameeynaa Soomaalinimo waxaan kugu soo dhameeynaa masuul san inaad wixii aan naga codsatay insha Allah ilaahay idinkiis war odayaasha dhaqanka reer Jubbaland arintaas waxaan rabaa rag iga dambeeyo inuu soo gulaanido oo aan saddexayno yaa insha Allah idinka sharaf Allah idin yaalo madaxweyne Xasan Sheekh وقاعدين مدحوين حسن شيخ كسو دواو odayaasha dhaqanka Jubbaland oo Soomaaliya ka kooban waxa cusubta waaqaadeen Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ay noqotay waa ku faraxsanahay waana ugu talagalnay inaan ka soo bilowno maanta markii aan soo marnay magaalada iyo mashaariicda iyo xafiisyada dawladda runtii wax aad iyo aad loogu farxo oo horumar ah ayaan ku soo aragnay deegaan aad isu bedelay qiyaastii 2 sano iyo bar ka hor meelaha ayaa noogu dambeysay horumar ballaaran oo ka muuqdo marka horta arintaas arin aad iyo aad ididiiro u leh waana la garanayaa asbaabta oo hadda iskama ayan dhicine qadarta rabbi ka sokow dadaal dadkan iyo hoggaankiisa ka yimid inbay ku dhacday sababta ugu sii weyn waliba si gaar ah waxay ahaydii deganaanshiyaha siyaasadeed isqabqabsi la'aanta muxuu ahaay hay'adaha dawladnimada iyo dadka deegaanka deganba ay muujiyeen ayaa keentay haddii maalin walba un buuq uu taagan yahay oo idaacadaha iyo telefishinada la taagan yahay oo la isdirirayo oo mashaakil ka taagan yahay ma ayan dhici lahayn horumarka maanta meesha ka muuqdahay inuu muuqdo ladii kumana soo dhiiran lahayn in la idin kaalmeeyo kuwan ayagaaba is haysteen bar intay ka soo kala baxayaan hala dhowro yaa la dhihi lahaa dabcan ummad kastoo meel ku nool iyo maamul kastoo meel ka jiro dad tabasho qaba waa mar walba waa jirayaan laakiin tabashadaasi mid kooban oo ama hadal lagu dhammayn karo ama laga dulqaadan karaba magaaladu aaday u ballaaratay dhismayaasha iyo xaafadaha sii fiday magaalada ballaarkeeda markaad diyaaradda soo degaysaad arkaysaa sida ay magaalada u sii ballaaratay muddadii koobneed iyo sida ay uga hormartay dhinaca infrastructure-ka wasaaradihii xukuumadda dawladda goboleedka oo xafiisyadoodii sii kala midba meel sii degayso sii hagaagayso iyo nidaamka deganaanshiyaha siyaasadeed ee meelahan deganaanshiyo siyaasadeed ka jirin ayadoon colaadi jirin oo dagaal iyo isdil aanu jirin ya haddana siyaasadda haddii la isku khilaafsan yahay yaa wax soconaya aanay jirin waad garanaysaan meelaha hadda un dee khilaafyada maamulka ka dhex jira uu ka jiro bannaanka u soo baxay oo yani culeysyada haysta iyo waxba in aanay ka qabsoomeyn 28 sano la soo dhaafay magaaladan Kismaayo dadka reer Kismaayo waa ku noolaayeen si kasta iyo maamul kasta iyo hoggaan kasta kala duwanba ha soo mareena haddana maanta inta u qabsoontay marna uma qabsoomin waxa ay inta ugu qabsoontayna waa dhismaha maamul la leeyahay oo dadku leeyihiin iyo deganaanshiyo maamulkaas iyo dadkiisa ka dhex jirta marka aad iyo aad ayaan arintaas idinku hambalyeynaya waan idinku bogaadinayaa inaad si adkaysaan oo si xoojisaan Puntland marka laga yimaado maamulkii ugu horeeyay dhismo ayuu ahaa Jubbaland waxbarasho badan ayaa laga bartay barigaas oo maamuladii ka dambeeyay ee dhismayay lagu dabaqay sida ay Jubbaland dhismaheedii way aragnimadii laga helay ma colaad la'ayn ma isqabqabsi la'ayn ma kala shaki yarayn intii wadadii dhismaha lagu soo jiray maamulka laakiin wixii laga bartay waxaa wax badan ay ka tareen maamuladii kale ka dambeeyay dhismay saddexdii maamul ee ka dambeysay iyada ee dhisantay ayaa waaye aragnimadaasi wax badan ay ka tartay runtii oo ay ka waxaysay marna annagu kumaanaan doodaynin maamulka haddii la dhiso inuu noqonayo mid oo xoog badan oo arada waxay laakiin inuu korayo oo soconayo korriimadiina hadda way ka muuqataa marka waa arintaas aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxnay waana arin qadarin mudan dadkii sameeyeyna waa idinka iyo dadka aad mas-uulka ka tihiin dadaalkaasi yaanu idinla yaraanin ha la sii xoojiyo ha la sii kordhiyo aad iyo aad ha loo sii kordhiyo dadka ha la isku hayo
kii tabasho qabana tabashadiisa ha laga jawaabo oo ha la dhageysto oo ha la qadariyo kii kalena hadda waaba socdaayo hore ha loo sii wado taas waa midaas dabcan mashaakilaadka dalka oo dhan uu qabo ayaa Jubbaland ay dhinaceeda ka qabtaa oo nimanka nabadiidka ay ka mid yihiin dhibaatada ku hayo dalka oo dhan guud ahaan dhaqaale yarida dalka ka jirto dawladnimada Soomaaliya oo guud ahaan ba undee maalin walba soo kordhaysa marka duruufaha dalka lala wadaago dhan marka laga yimaado inta adika idin gaarka mid ugu muhiimsan waa de nimankan nabadiidka in dalka laga xoreeyo marka taas waa midnimada ugu weyn u baahan maadaama hadda masaalixda iyo wanaaga ay leedahay midnimada siyaasadeed iyo deganaanshaha siyaasadeed ay muuqato inta dhimanna ayadaas un baa lagu gaari karaa in la sii xoojiyo la waxeeyo intaa kadib dalka Soomaaliya dawlad dhisidiisa safar dheer ayay soo martay 18 sano ayay haatan maraysaa maalintii nidaamkii carta laga soo bilaabo oo dalka dawlad ugu horeyso ku meel gaarkeed burburka kadib dalka la dhiso 18 sano dawladda hadda jirta teeramkeedan 2020 ku egna waxa waa 30 sano yaan gaarina marka 30 sano oo duruufo gaar aan ku jirnay waxa ka horeeyay 30 sano aan dawlad ahayn 60kii ilaa 90kii dalkaani dawlad hanata dalka u lahaa sida aan sheegay mar walba tabasho waa jirtay dawladdaas dada dib ku haysay dibsanayay ilaa markii dabadee wixii weynaa dibka badnaa ay dhaceen 30 sano ku xigtayna 10 sano dagaal sokeeyo joogta ay socdeen iyo 18 sano oo 20 sano u socota hadda oo ayaduna dawlad dhisid ku soo jiray wax badana soo qabsoomay waayahaas laakiin de waxa noo qabsoomay wax ka badan in noo qabsoomaan rabnay waxa aan gaarnay laga soo bilaabo carta lagu soo xijiyo maxaan ku raay Mbagathi lagu soo xijiyo maxaa dalka dhaxdiisa dawladii inay Jowhar tagto inay Baydhabo tagto markii daba Villa Soomaaliya oo muddo dheer burburka kadib dawladda ay tagin madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay inuu dawladnimadii keenay Sheekh Shariifna inuu markii dambe magaalada Muqdisho oo shabaabku ay qabsadeen iyo agaarkeedan uu ka saaray ku meel gaarnimadii dalka uu ka saaray oo dawlad aan ku meel gaar aan ahayn ay dalka ka dhalatay annaguna intii aan kari karnay waa markaa duruufta noo saamaxdaan ku darnay waa tan maamul goboleedyadii iyo ay dhismeen oo doorashadii halka meel ka dhacday Muqdisho ka dhacday 2012 inay 6 meelood oo kala duwan oo dalka kamid inay ka dhacdo 135 oday khayr Allah siiye oo soo aasaasay soo bilaabo waxaan in laga gudbo oo ilaa 14 iyo 15 dad ku dhow ay wax doortaan in kastoo wali qabiilkii la joogo hadana qabiilka dhaxdiisa xataa lagu tartamo in la yiraa 2020 insha Allah waxaan rajaynaynaa meeshaas meel ka sii inay gaarto hadii la yiraa oo deegaanada la iska dooranayo 6 deegaan hore ay ka bataan tirada dadka ka qayb galay doorashaduna ay 14 ka bataan hasaasna ay muxuu ah sii korto hasa yeeshee 30 sano cimriga bini aadamka waqti aad u dheer waay laakiin cimriga ummadaha 30 sano kuma dheera ummaduhu 100 sano iyo 10 sano ayaa cimrigooda iyo lagu qiimeeyaa marka haddii 30 sano aan dawlad ahayn 30 sanana aan duruufo gaar ah iyo culaysyo iyo dhibaatooyin aan ku jirnay mas'alada maanta ninka Soomaaliga ah ee mas'uulka ah ee aqliga leh inuu ku fikiro ay tahay waxa waaye 30 sano dambe xagee gaarina 30 sano ee 2020 ka dambaysa ee 2050 ku eg Soomaaliya xagee gaaray Soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa 2050 oo in badan oo hadda galabta meeshan dadka fadhiya kamid aanay gaari doonin oo muxuu ahay waatii la yiri guuleey haduu ku daayo gugaagan ku daynin oo cimrigeenba aanu muxuu ahay inuu noo saamixin laga yaabo inaan 2050 aan joogno hadii aan joognana dad wax tar laho inaanan ahayn
ayay u badan tahay marka laakiin waa talo masiir ummadeed oo in la qaabeeyo u baahan intaad adigu nooshahay laguma qaabeeyo laguma sareeyo ummadda waxtarkeeda iyo waxqabadkeeda adiga kaasii gadaal maxaad muxuu ahay gurigaaga ilmahaaga maxaad ugu mashquushaa oo hanti ugu tacabtaa oo aad wax u bartaa oo aad muxuu ahay u wanaajisaa berri gadaashaa nolol fiican inay ku noolaadaan dad fiican ay noqdaan oo diinta iyo dadkaba wax tara waayo waxaad ugu daarayso ummaduna waa sidoo kale waxay u baahan tahay adiga gadaashaa inay wanaag ku noolaato iyo sharaf iyo karaamo maanta inaad ka shaqayso ummadda guud ahaanna waa sidaas oo waa sida un qoyskaaga oo kale marka maanta dadka Soomaalida ee Ilaahay zamankoodii uu ka dhigay ee nool mas'alada u taalo waa taas Soomaalidu hadda ka hor ayadoo intaan ka tabar yar ka aqoon yar ka hanti yar ka maxaan ku raadayay ilbaxnimo yar oo ka waaya aragnimo yar ayaa niman dhalinyaro inta u kaceenay dhahayn Soomaaliya meeshaasaan rabnaa inay gaarto Soomaaliya noocaas aan rabnaa gumaysiga dalka haystay afartameeyadii niman dhalinyaro oo 15 oo aan shahaadooyin waaweyn iyo hanti badan iyo aan haysan ayaa inta shiraya waxay yiraahdeen waxaan rabnaa Soomaaliya xor ah oo midaysan shanta Soomaali oo qaran ah oo dawladaha adduunka ka jira barbar taagan oo heybadaas lahaan rabnaa Soomaalida sawireen dadka Soomaaliyeedna waa u sheegeen Soomaalida noocaas aan rabnaa si aan u gaarno waxay yiraahdeen cadawgaan aan leenahay 1 2 3 aan ka leexano hadii kale hadii aanan ka leexanin ma gaarayno Soomaaliya isqulubdan wixii ugu weynaa tilmaameen wuxuu ahaa qabiilka siyaasadaysan siyaasadda iyo qabiilka aad uga hadleen waxay ku guuleysteen dadka Soomaaliyeed in ay qabiilka ka fogeeyaan ayagoo waa la mamnuucay iyo waa la joojiyay iyo qofkii ku hadla waa la xirayaa iyo waa la dilayaa iyo aan la dheen ayay shanta Soomaali meel kasto ay jooga jigjiga jooga iyo ka gaarisa jooga iyo ka Lowyacda jooga inta ka dhaxal yaa waxay ogoleysiyeen in ay qabiilku in uu dawladnimada iyo xorriyadda iyo Soomaalida quruxda badan rabo inuu caqabad ku yahay marka inaanan loo waxayn oo dadku ay ka xishoodaan reer hebelaan ahay inuu yiraa oo qof safraya haduu daagaan yimaado oo guri yaa reer hebel oo magaaladan degan aanu dhihine oo yiraahdo dirsoonka laagada hal geeyo halka lagu marti geliyo oo dago intuu martida yahay waa ku soo caana maaleen meeshii ay rabeen waa gaarsiiyeen Soomaalidii xorta ahayd ee adduunyadu ay la baratamaysay oo sharaftay karaamada lahayd waa soo gaarsiiyeen intii ka dambeysay dadkii marka ka dambeeyay ayaga qaar badan oo kamid ah Soomaaliya ayaan gaarin xorriyadii oo intaan xorriyadiiba la gaarinay yaa ay Ilaahay oofsaday qaarna way soo gaareen qaarna annagaaba soo gaarno ayagoo muwaadiniin caadi oo shacabka isaga dhex jiro oo wax gaar ah oo heybada iyo abaal gaar oo hadda ay ku qaateen laakiin wixii ay rabeen in ay xaqiijiyeen oo ay maxaan ku iraahday ay dalka ay gaarsiiyeen hadafkii ay rabeen taasa qanaacada ugu weyn oo maxaan ku iraahday gaareen u ahayd qanaacada ugu weyn oo gaareen taasay u ahayd markii dambe ayagoo muwaadiniin caadi ah xorriyadda hadii la qaatay qaarkood waliba nololda iska hoose ay ku nool yihiin dalka joogi jireen laakiin dadkii ayaga ka dhaxlay ee ka dambeeyay ayay ahayd ummadda haddana inay u sii sawiraan dawladnimada ay yiraahdaan sanadahaas hadii la gudbo Soomaaliya noocaan aan rabnaa waxaana caqabad ku ah aan ka leexano wadadina waa taas aan maro meesha Soomaaliya noocaas aan gaarno tii ma dhicin tii markay dhici weydana dadkii gadaal ay u noqdeen awalba qabiilka waa laga keenay qabiilkoodii u noqdeen waad xasuustaan doorashadii 1969 sideetan iyo dhowr xisbi inay ka qayb gashay oo kulligood aan wada garanayno oo jufa ah beelweyn xataa aan ahayn jufa hoosa laana qofka Soomaaliga ah meesha uu ka tirsan yahay waa qabiilkiisa marka hadda maanta taariikhda dib ay soo qortaa waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan saadaalino Soomaaliyada aan rabno Soomaaliyadaas marka 18 sano iyo 18 30 sano hadda aan tilmaamay inta waxaan
isku dayaynay inaan dowladnimadii helno Soomaalidu waxay ku maamaadaa caloolo waxay ku bukootay laguma daaweeyo calooshaan caano geel intaad cabta haddaad ku jirratay caanihii geelaan sii cabaya waa kusii daaweynaya ama hilibkii sii cabaya waa kusii daaweynaya madii waa inaan daawo kala raadisa annaga dalka dowladnimadiisii markii aan dowladda inaan la dirino aan go'aansanay tuulkii ama aaliyadii aan qaadanay ee aan ku kala furfurnay dowladnimada wuxuu ahaa qabiilka ciidankii aan qabiilaynay maamulkii aan qabiilaynay siyaasaddii waa qabiilaynay dowladdiina waa kala furfurnay nasiib darro dowladdii dib ha loo dhiso oo ha laysku soo celiyaa la yidhi tuul kalaan weynay oo aan wixii dowladdii haddana aan ku dhisno qabiilkii aan u noqonnay marka waxaan noqonnay dadkii calooshu waxay ku bukootay ku daaweynayay yaan noqonnay ilaa maantana waa joognaa dhibaatadiisa waa arkaynaa qabiilku annagaas meeshii uu lahay meelaan ahayn aan u isticmaalaynaaye ma aha inuu xun yahay laakiin meeshii uu lahay ee uu ku fiicnaay oo saxda ku ahaa meelaan ahayn aan u isticmaalnay marka intaa waa la sheegayay waa la garanayay waa la lahaa war amaanan qabiilka muxuu ahay aanu wax noo saxayn siyaasadda markay timaado oo aan ka leexinaayo wax kale ka raadinaa oo asaguna meelihii uu ku fiicnaayo lahaa aan ku aadinaa laguma guulaysan adigu sidii loo soo wada hadda marka waxaa la yidhi xisbiye siyaasadeed balaan aad xisbigii reer hebel hadduu noqdo waa guuldarro kale xisbiyadu xisbiye Soomaaliyeed inay noqdaana la rabaa Soomaali xisbi Soomaaliyeed oo Soomaali ay ku wada jirto ha u kala badnaato hadday doonto deegaanadu ha u kala badnaadaan waxaa laga yaabaa xisbi mucayan oo gaar oo in xisbiga qurac la yiraahdo inuu 1,000 qofood magaalada Kismaayo ku lahaado magaalada Muqdisho 100 qofood uu ku lahaado waa macquul ama Baydhabo inuu 100 qof ku lahaado ama muxuu ahaay deegaanadaas kale wax laakiin waa inuu ku lahaado meel walba dad laana mabaadi iyo aragti siyaasadeed waaye xisbigan waxa uu wado aragtidaas dad aaminsan oo raacsan meel ah ku yaraadeen meelna ku badnaadeen waa inay jiraan laakiin deegaan kasta waa inuu joogaa waxa la isku raacayana waa tol siyaasadeed ee tolki dhaqanka ahay ma intii isku aragtiya isku fikra Soomaaliyadaas aan sheegay isku si inta u sawirato isku wada inay marto ay ku raadiso isla garata intaasa muxuu ahaay tol siyaasadeed isla ah oo isku imaanayso marka aan rabnaa mashruucaas inuu hirgalaan rabnaa marka inuu dhaqaaqo oo dalka bal dhinaca loo leexiyo aragti iyo fikir iyo talo meel kaga wanaagsan Jubbaland oo barnaamijkaas laga bilaabi lahaana ma jirto sababaha aan u nimiday Kismaayona koow ayay ka tahay sababtoo ah Jubbaland waa Soomaaliya yar waay oo Soomaalida oo dhan oo deegaanada kale ee Soomaaliyada ee balaaran degan oo dhan halkan waa degan yihiin ha ku kala badnaadeen ha ku kala yaraadeen laakiin deegaanadan Jubbaland la isku yiraahdo oo dhan 4.5 waa wada joogaan kulli meel ay ka maqan yihiin male meel ay ku yar yihiin meel ay ku badan yihiin dhulka Soomaalida dhamaana sidaas qabiil kasta qabiilka inta ku badan meel kale ku yar yahay midka inta ku yar meel kale ku badan yahay waa dabeecadda dhulkeenu uu sameeyay yahay iyo mujtamaceennaba sidaa ahba marka maadaama Jubbaland marka deegaan sidaas ah oo Soomaaliya ah oo Soomaaliya dhan ah inaan nimaado oo aan horta u sheegno dhahno meeshaas cusub ee loo guurayo siyaasadda ee ah barnaamijka xisbiyeysan annagu kamidanahay xisbiyana leenahay halkaan aan ka bilaabeynaa oo aan nimiday inaan dhahno waa soo go'aansanay asbaabta halkaan u nimiday kamid yihiin akhyaarta marka xisbi liiraa midowga nabadda iyo horumarka oo nabadda in loo midoobo horumarkana loo midoobo oo dalku meelna aanu ka horumarin meelna aanu ka dib dhacsanaanin meelna aanay nabad haysan meelna aanay nabad la'aan ku noolaanin ay tahay aan wadnaa fikirkiisa iyo taladiisa iyo wuxuu aaminsan yahay mabaadida uu ka duulayo iyo ahdaafta oo hiigsanayo ayadoo tafaasiil laho maxaan ku iraahdaa qoran oo laga doodo laga sheekaysto oo la iswarsadaa keeni doonaa laakiin safarkeena waxaan rabnaa
horta inaan xisbigaasi aan aasaasnay oo jiro inaan idiin sheegno idinkana codsanno afkaarta xisbigaasi uu xambaarsan yahay oo fikir Soomaaliyeed ah oo fikir reer hebel iyo fikir degaan gaar aan ahayn in lagu garab istaagana waxaan u nimid codsanayna waay intaan farsamada iyo wuxuu maxay yihiin iyo bal kala qaad aan la dhiin horta mabda'a guud ee Soomaalinimada ah ee nabadda ah ee horumarka ah ee midnimada iyo in la midooba ah waaye muxuu ahaa xisbiga aan wadno maalintiisaan soo bandhigi doonaa aan dheerayn xafiisaan halkan ku yeelan doonaa reality-ga xaqiiqda dalka maanta uu ku sugan yahay oo ah nidaamka federaalka oo ka hana qaaday dalka waan rabnaa inuu ka sii hana qaado oo sii xoogeysto yaa asal iyo sal u ah xisbiga anagu aan aaminsanahay xisbi hal meel ka jiro hal meel looga taliyo meeshaas laga soo kala amro ma ah sida jamhuuriyaddu ay dawlad goboleedyadu ugu kala qaybsan tahay kadibna dawlad dhexe ay u leedahay oo kale yaan rabnaa fikirka xisbigaani inuu sidaa oo kale Jubbaland uu ka jiro gudoomiyaheeda uu ka yeesho golahiisa dhexe uu yeesho gudigiisa fulinta uu yeesho xafiiskiisa garabkiisa dhalinyarada garabkiisa haweenka garabkiisa xirfadleyda halkan dadka degan ay ka yeeshaan kadibna meel kasta asoo sidaa u dhisan inuu isku yimaado xisbiga oo midda heer qaranka ana markaa oo sameeysto isagu yaa madax ka noqonayo yaa maxaan ku iraahdaa goriisa dheer qaran u yeelanaya gudigiisa fulinta heer qaran u yeelanaya laakiin dadkii deegaanada ka yimid oo isku yimiday yaa waxa sameeysanaya ee wax sameeysan oo meel yaalo oo dadka meesha saalada ka xukumaa la leeyahay maana dadka meesha laga xukumaya iyo dadka xukumaya dadkaani dad ay dirsadeen sida halkaan baarlamaanka federaalka ee labada aqal ka kooban dadka ku jiraba sida halkaan looga diray oo koonfur galbeed looga diray oo Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Puntland looga soo diray sidoo kale aan rabnaa xisbigana dadka xukumaya oo taladiisa hayo oo hogaaminayo dad deegaanadaas ka wada yimiday oo Soomaaliya oo dhan ah oo laakiin deegaanka ka yimid oo inta soo noqdo deegaankiisa iman kara oo wartaladaana la hayaa Soomaali sidaana la rabaa in wax loo qaybiyo maxay idin la tahay dadka dhigi karo koow documenti aan sameynay waxbaan soo qornay mabaadidiisa iyo ahdaaftii iyo wixii aragtidii waa soo qornay laakiin de ayado kitaab munazal oo Ilaahay ku soo dejimay waa fikir la isku keenay wali waa furan tahay in wax lagu daro iyo in wax laga dhimo intaba oo marka wuxuu dhulka ay yimaadeen oo dadka ku dhaqmi lahaa ay u yimaadaan yaan rajaynaynaa waliba in ay dadkaasi wax badan ku dari doonaan wax badan ay ka hagaaji doonaan marka khiyaarta marka la idin mahad celinaya asbaabta ugu weyn oo meesha u nimaday xisbigana way ahayd dabcan inaan la wadaagno jiritaankiisa waxa kale oo ahayd wanaaga iyo horumarka socdo inaan aragno waxaan aragnayna waxay nagu sii dhiiri gelinayaan inaan sii xoojino ka shaqeyno dadka ku wacyi gelino dawladnimada mustaqbalka ah lagu saleeyo lagu raadiyo nidaamkan federaalka ah ee dawladnimada iyo xukunka dadka loo soo dhaweynayo dadka la xukumayo ee Soomaaliyeed talada iyo nidaamka in loo soo dhaweeyo maanta wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland aan tagnay madaxweyne ku-xigeenka la socday meesha waxa looga dhawaaqay mashruuci ahaa in deegaanadii councilskii iyo gudiyadii maamuladii deegaanada in la dhisayo oo dadku ay deegaanadoodii dhisanayaan maamulkoodii iyo cidii hogaami lahayd dawladda Jubbaland ay saacidayso oo ay fududeynayso ay ka qayb galayso laakiin sida mabda'a federalismka uu yahay deegaanada dadka degan inay ayagu isu yimaadaan oo ay maamulkooda dhistaan ay tahay marka waa rajaynaynaa taasna mashruucaas inuu hana qaado wax kale oo dawladnimada dadka ha loo dhaweeyadii inay deegsmaayo ku ekaato maana inay deegaanada tagto maanta intii ay suurtagal tahay berrina intii kale suurtagal tahay la gaarsiin doonaa marka taraakumkaas tartiibka ah ayay ku socod doontaa wax aad iyo aad diidiila kale oo sii socoto waay marka khiyaarta intii horena waana ku ammaanantiin waana ku mahadsantiin aad soo qabateen inta dhimanne waa in idin taaloon aad idinku boorinayno inaadan dad kale iyo cid kale aadan ku halaynin aad u istaagtaan sida uu si dhaqan gali lahaa
sidaasna ma aha deegaanka Jubbaland kaliya ee danta Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku jirta aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.